madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ahna hogaamiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka oo labadii maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyay wixii uu qabsoomay intii uu ku sugnaa magaalada Beledweyne. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasuulillah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. maanta waxaa noo soo gabagaboobay safarkii aan ku nimid magaalada Beledweyne. runtii safar guuleed wanaagsan oo ahaa sida aan horeyba idinku sheegnay safarkan waxay ahayday inaan dadka deegaanka iyo xaaladaha deegaanka jiran aan xogogaal u noqono, dadka deegaankana aan soo dhageysano duruufahooda iyo shu'uuntooda gaarka ah. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay safarkaani. waxaan dhageysanay dadka Soomaaliyeed ee deegaankan ku nool magaalada Beledweyne iyo duruufaha ay ku nool yihiinba iyo waxyaabaha maxuu ahaay caqabadaha haysta iyo wanaaga iyo guulaha ay gaareen intaba waa ka soo dhageysanay talooyinkooda guud ahaan dalka Soomaaliya iyo maxaan ku yiraahday ra'yiga ay ka qabaan dawladnimada iyo sida ay mustaqbalku u arkaan waa soo dhageysanay. waxyaabo badan oo aan soo weydiino su'aalaha way nooga jawaabeen, su'aalo badan ayagu ay qabeen oo ama ku saabsan dawladnimada ama ku saabsan mustaqbalka iyo sida ay wax noqonayaan ama ku saabsan wixii hore la soo maray iyo muxuu waaye aragnimadii laga kasbaday intaba waa ka wada sheekaysanay. runtii waxayna ahayd safar guuleed. waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahad celiyo odayaasha dhaqanka halkan igu soo dhaweeyay ila kulmay warbixinadana siiyay annagana dhageystay. waa u mahad celinaynaa qaybaha kala duwan ee ururada bulshada aan la kulanay ee dhalinyarada haweenka lahay ayaguna sidoo kale waa u mahad celinaynaa iyo soo dhaweyntii fiicneed aan kala kulannay. sidoo kale Ugaas Xasan oo aan gurigiisa ku booqday asna igu soo booqday guriga aan deganaay martida aan ku ahaa asna waa u mahad celinayaa. runtii aad iyo aad ayaa talooyinkiisa iyo waanooyinkiisa ay u ahaayeen kuwa waxtar ah, ra'yigiisana uu caddaa ku saabsan Soomaaliya iyo wanaagga deegaanka iyo dadka iyo dawladnimada intaba. markaa ugaaskana waa u mahad celinaynaa guud ahaan reer Hiiraan oo dhan, guud ahaan dhammaantood intii markaa fursad aan u helno la kulannay iyo intaanan fursad isu helin oo kulminba intaba waa u mahad celinaynaa dhammaan. waxaan rabaa dadka qurba joogta ee deegaankan ka tirsan in ay deegaankooda ka warqabaan arrimaha bulshada, caafimaadka, tacliinta, waxyaabaha mujtamacu u baahan yahay inay qayb ka qaataan. dabcan dawladda bas aan uga hadlayno, dawladdeenu waa dawlad muxuu ahaay heer awoodaheedu ay xadidan yihiin duruufaha jira dalka ka jira awgiis. marka in dadka laga warqabo oo gargaar iyo kaalmo iyo garab istaagid intaba la siiyo. markii ugu horeysay madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu socdaal ku yimaada magaalada Beledweyne tan iyo markii uu ka degay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Ibraahim Maxamed Xasan, Ibraahim Jamuni, janaalka wariye Jamuni, magaalada Beledweyne.